rabaa qof walba oo Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba inaan u istaagno inaan dalkeena dib u soo dhisanno oo aan tusno caalamka Soomaali waxay ahaan jirtay iyo dalkan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa 2 sano ka hor ku dhawaaqay barnaamijka isxilqaan qaran oo ujeedadiisu ay ahayd dhismaha xarumaha dawladda iyo kuwa danta guud. laba sano kadib ololaha isxilqaan qaran maxaa lagu hirgeliyay Hong Cable TV ayaa diyaarisay barnaamijyo taxane ah oo si joogto ah aan uga xog waramayno in ololaha isxilqaan qaran uu dhaafay halkii looga dhawaaqay waxaana barnaamijkeena uu ka bilowday wasaaradaha xukuumadda oo madax iyo shaqaalaba ay u istaageen muujinta bilicda xarumaha ay shacabka ugu adeegaan. wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada, boostada iyo isgaarsiinta, ganacsiga iyo warshadaha, iyo wasaaradda howlaha guud iyo dib-u-dhiska ayaa ka mid ah xarumihii aan booqanay. si isxilqaan qaran ah ayaa dhammaan wasaaradahan dib loogu soo celiyay bilicdii ay bari lahaan jireen. mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradihii aan booqanay ayaa inooga xog waramay muuqaalkii shalay iyo kan maanta ee wasaaradaha ay joogaan. runtii wasaaraddu waxay waa Cabdicasiis Duwane Isaaq agaasimaha guud ee wasaaradda boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda ee xukuumadda federaalka waxa uu mid inoo dulgeeyay xafiisyada wasaaradda oo si isxilqaan ah dib u dayactir iyo qalabaynba loogu sameeyay. dayactirka iyo qalabaynta wasaaradda oo ah hadda mid maanta aynu maartay hawsheeda aan rabno inaan maartay runtii idin tusno si fiiskaliya idin tusno. waxaad ogtihiin wax walba meel bay ka bilowdaan wasaaraddu runtii intii hadda 2-3 sano hadda maartay xukuumaddani jirtay wasaaraddu yani waxaan dhihi karaa markii la bilaabahayay hawsha la bilaabahayay xitaa kuraas ma lahayn wax walba waxay ka soo bilowdeen maartay meeshii u hooseysay ka soo bilowdeen ilaa maanta oo aad arkaysaan xafiisyadii iyo ismihii wasaaradda inuu yahay yani magaranaysaa mid dhammaystiran oo xaqiiqdii maanta la soo gaarsiiyay heerkii ugu dambeeyay ugu wanaagsanaa. wax walbana waxa weeyaan dadaal iyo isku day iyo dadka markaa muxuu ahaa meeshii jooga sida ay uga go'an tahay ina iyagu ay maartay ay waxoodii hagaajistaan baan ku shaqaynaynay. mahad ka gaadhay runtii wasiirka wasaaradda injineer Cabdi Caashur Xasan oo aad iyo aad maaragtay ugu dadaalay in ay wasaaradda iyo dhammaan mas'uuliyiinteedu ay u wada guntadaan in aan wasaaraddii dhismo iyo shaqaba aan isa soo gaarsiino. yaa maanta noo suurtagelisay runtii inaan ka mid noqono wasaaradaha maanta degan xaruntoodii oo lagu shaqayn karo bilicle. waxaan dhihi karaa xafiisyada maanta wasaaraddu ay leedahay xafiis walba ama qalabkii loogu talagalay ee maartay muxuu ahaa xafiiseed ama yani structure-kii loogu talagalay uu xafiis walba leeyahay. hadduu noqon lahaa shaqaalaha hoose, hadduu noqon lahaa agaasimayaasha waaxaha, hadduu noqon lahaa agaasimaha guud ilaa wasiirada. marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta idin tusno qaybaha kala duwan ee wasaaraddu ka kooban tahay iyo sida ay u samaysan tahay maartay ismaheedu ama maartay xafiisyadu ay maartay u samaysan yihiin ama ugu diyaarsan yihiin qaabkii loogu shaqayn lahaa. Soomaaliya waa ay 60 sano jirsatay marka laga hadlayo xurriyadda. qurxinta xafiis walba oo dawladeedna waxa bulshada Soomaaliyeed loogu muujinayaa in rajadooda dawladnimo dib loogu soo celiyo.
dowladda ayaa guddi u saartay weynaynta maalmaha xurriyadda Soomaaliya. Guddigan ayaa dhammaan hay'adaha dowladda heer qaran iyo heer federaal ku dhiirigeliyay muujinta waxqabad iyadoo laga bilaabayo goobaha danta guud iyo kuwa shacabka loogu adeegayo. gudoomiyaha guddiga qaran ee qabanqaabada weynaynta maalmaha xurriyadda Soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maarey oo kormeeray sida shaqada bilic soo celintu ay u socoto ayaa xafiiska wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada waxa uu ka sheegay in dowladda federaalka ay wado barnaamij la isaga dayanayo waxqabad ka sokow dabaaldegyada oo qorshaysan ee heer qaran iyo heer maamul goboleed iyo heer goboleed iyo hor degmo oo dabcan dadka Soomaaliyeed oo diyaar u yahay dawladda nabad iyo nolol waxay kaga duwan tahay oo runtii ay ku faanaysaa in muddadii 3 sano iyo xogaaga ay jirtay dalka Soomaaliyeed dib u dhistay oo maanta wajigii Soomaaliya ee wanaagsana hadduu yahay xagga dhismaha hadduu yahay xagga qarannimada iyo adduunka sida looga tixgeliyo hadduu yahay xagga kobaca dhaqaalaha hadduu yahay xagga adeega bulshada intaba aad wax looga qabtay waxaanu leenahay qayb aanu dadka Soomaaliyeed ku tusayno iyo horumarka dalku gaaray si niyadda Soomaaliyeed aanu taariikhda ku noolaynayno iyo dawladooda waxqabadkooda aanu tuso kaas slogankiisu waxa weeye dalka waa dhisaynaa ee nagu dayo walaal inala ku daydaan doonay dawladda nabad iyo nolol in lagu daydo maamulada naga dambayn doona ay nagu daydaan intii aan joognay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa isbeddelka dhanka bilicda ee wasaaradda iyo qalabaynta waxaa faahfaahin inaga siiyay Maxamed Cadam Muqtaar agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasaaradda ayaa lagu sameeyay dib u habeyn oo waad u jeedin ama hadhowtole waa idin muuqataa dayactirka lagu sameeyay wasaaradda waxaana dib loo furay 23 February 2020 si xogta aan bulshada u soo bandhigayno ay u noqoto itus oo itaabsi kaamiradeennu waxa ay gashay qol walba iyadoo madaxda wasaaraduhuna ay nooga xog warameen shaqada la qabtay iyo mid socota halkan waa dhismaha wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta waa wasaaradda ugu muhiimsan wasaaradaha xukuumadda marka laga hadlayo dib u dhiska dalka waxa ay ka mid tahay goobaha isxilqaan qaran dib loogu dhisay wasiirka wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guryeynta Cabdi Aadan Hoosow ayaa nala wadaagay shaqada halkan laga qabtay wadan intaasoo sano dhibaato ay ku dhaceysay baa wuxuu nooga baahan yahay in aan dhisno annaga aan dhisano intaan marka ku mashquuli lahayn isjiid kale kanaaba dhismihiisa wuxuu nagu qaadan doonaa waqti aad u dheer kana aan soo wada jeesano wasaaradda howlaha guudna hormuud bay insha Allah ka noqonaysaa wasaaradihii aan tagnay si aan uga soo xog waranno waxaa ka mid ah wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo iyana ka mid ah goobaha si isxilqaana dib u dayactir loogu sameeyay Cabdi Casiis Ibraahim Aadan agaasimaha guud ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ayaa ka hadlaya qorshahooda ku aadan bilic soo celinta goobaha bulshada loogu adeegayo inayno arrimaha dawladdan maanta ay higsanayso ah in bilicda dawladda xamar ama Soomaaliya oo dhan la soo celiyo laguna soo celiyo isxilqaan iyo iskaashi wasaaradaha iyo shaqaalaha dawladda dhammaantood marka wasaaraddana macnaha waxay fulinaysaa runtii fikirkii quruxda badnaa ee dawladdan maanta ay ku hogaaminayso waddanka ah in dib loo dhiso xarumihii dawladdii iyo in la qurxiyo dawlad runtii annaga aad iyo aadaan uga faraxsannahay la soco qaybta labaad oo aan ku soo qaadan doono wasaarado kale oo ay ka socoto howlaha isxilqaan qaran waa Cabaas Xuseen iyo tiimka isku hoolay diyaarinta barnaamijkan oo idin leh nabad iyo warsan